siyanshiinkonaha warsheeruu diin ma heestaana lagu yidhi war waxay ku dhawaaqeen howlgalka siyanshingoha oo loola jeedo la dagaalanka malaa'igta waxayna duqeeyeen cirka diyaaradayna hawada u direen waxayna dhaheen malaa'igtaanu caraysannahay sababtoo ah roobkii bay naga joojiyeen waayahan warnimayaha waxawaanta la sheega ma sidaasay u fikiraan ar adduunyadana gentleman agreement iyo gacmo geel jirana xaa isu geeyay ahey ragadiisa gaalna galaan galada waleeri horta adiguna madayo berig gashow gaala galgashay aad tiraayaa muslimay ahaayeen ku yiri war gentleman wasiiru ahaa jira cabdulla wallahi u naxariistee ayee agreementina ku xigeen miyuu ahay xasan shiiqi saciid duniyo isku faramurxay ugu dambeyn waa heshiiyeena la yiri maadaama waxa laga hadlayay ay ahaayeen waxa loo yaqaan gentleman agreement gacmo geel jira hoosa loo dhaqahay ku dhamaataa la yiri war dadka qaar waxay leeyihiin shirki maalmahan garoowa ka socday ma ahan shir Puntland loogu danaynayay mana ahan shir federaalka loogu danaynayay ee talow yaa loogu danaynayay warniyo adiba walan gordaana jagmal arminta yala kaari war idinka laftirkiina dib heshiisiin u baahane madaxweyne xasan shiiq wuxuu bilaabay kulamada uu la qaadanayay bulshada rayidka wuxuuna sidoo kale booqday xarumaha dawladda Puntland oo ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha iyo xarunta guddiga doorashooyinka Puntland aryaadaha hadda arinta lamada oday waxa la sheegay inay ku dhamaatay wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya aryaadaha waxa la yiri Tigray iyo Abi tii xumeeda kala haysata Tigray iyo Oromay kala bixin miya iska fiigoo ku dhaadhiiday amxaaradii ay la safatay marka aryaanaga shibda amxaaro abiyay abti u yihiin warwarka ay ka dhaxgelinine Tigraygu magaalooyin badan ay qabsadeen la yiri ciidankii dawladana koobtayda maanta ku dhacdaa la yiri anna maanta waa taageero waxa la yiri macal anfarti Soomaaliya soo barakicida waa ka cabaadiyeen Allah colkeen colu bixiyaan maqli jire Tigray wax la taageero ma hale horta anfar ma ka cabaadiyeen war waxa la yiri duulkii gabood fulay ilaah wuu ka gudayaaye biladada kuwii gubahayay gabanadii laayay mar haday iyana galalafeen garabkay weeyaan Uhuru Kenyatta wuxuu soo istaagay in la daariyo William Ruto oo ah madaxweynaha dhawaan la doortay ee Kenya xogayaha xisbiga uu hogaamiyo William Ruto Veronica Maina waxay tiri waxa dhan ee qaska socda Uhuru ka dambeeya Raila Odinga saakada ka soo riixay miya war maxkamadda dacwada lama geyn war gabaana taraag ira moojay la korori oo maxkamadda la jeey Uhuru lahaay war xitaa shabaab waa ka hadleen doorashada Kenya aryaa dawladda Itoobiya waxay ku tiri Tigray argagixisa waay aryaa mashaabka la sheegaya ku biiray war ma haysiin dalka Pakistan waxa la yiri roobab mihigaan waa ka daay wabiyadiina waa fataheen dad ku qofood ka badanaana ku dhintay war ma haysiday waxa la yiri Yurub iyo Mareykan abaar culus baa ku dhufatay wabiyadiina way qalaleen war Faransiiska waxa la yiri wabiga guray dhagaxan kustan la arkina soo baxay Mareykan baa wabigii ka guray Faransiis baa wabigii ka guray maxay iga gadhiisha dalkay abaar ku jirtay war khabiirada dhaqaalaha waxay dhaheen Soomaaliya hadii amni noqoto waxa la joogaa xilligii wax soo saarkeeda Yurub u dhoofin lahayd war ra'iisul wasaare Xamse waxa la yiri Tunisia waxa kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Japan waxa uu sheegay Soomaaliya inay taageerayaan ma baabuurayna siinaya wax kale ku wada waliga ma aanan arkin Allah ayow adduunyada ka dulqaad abaaraha Allah ayow adoomada adiga abuurto irsaqooda bixiye ka dulqaad abaaraha haddii aad u baahan tahay nooc walba oo kumbuyuutar ah cilis ama cuseeb booqo xarunta hoyga elektarooniga oo ku taala nawaaxiga masjidka Abu Hurayra ee suuqa Bakaaraha macaamiisha ayaa lagu soo dhaweyn doonaa gacmo furan kala xiriir taleefanka shaashada ku qoran